السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga aan jeclahay ee Soomaaliyeed waxa weeye maanta walaashiin xamra maxay idin haysaa weeyaan maanta waxaan idin hayaa minti oo aad caan ugu ah wadamada Carabta dabcan Soomaalidana ay reexaan u taqaano saan jeclahay oo ubaxeeda intaan goosano aan sanka saaran jirnay dhagtaan ku laaban jirnay koonfurta Soomaaliya cidii taqaan ayaa taqaane hadda ka horna waa idinka soo hadlay dhulkan Puntland la yiraahdo waxaa looga yaqaanaa geed xamar subaga lagu shiilaa marka oo reemiga iban ay ku shiilaan marka waxa weeye minti anaga Soomaali hadaan nahay waxaan u haysanay kaliya inaan ku darsano subaga ku shiilano I think iyo koonfurta dabcan cuntada waa lagu darsan jiray dad reer magaalo ahaayeen xanaaqina dadka kale oo dhan marka maanta waxa weeye walaalahayga Soomaaliyeed waxaan uga faa'iideynayaa my people mint today minti waxay u fiican tahay ayaan idin sheegayaa iyo anfaca ku jira iyo siday important u tahay Soomaaliyeed minti waxay u fiican tahay dhaxanta ama qandhada ama waxay u fiican tahay dadba sida u yaqaanaan hargabka ama durayga waxay u fiican tahay qufaca waxay iyo duufka dareera oo daata markii uu hargab ku hayo waxay u fiican tahay oo kala caloosha digestionka caloosha way ku bixinaysaa waad fariisanaysaa caloosha waan idin sheegay Soomaaliyeed cudur ka xun ma jirto caloosha haday ku bixi weydo waa ku dhamaatay tan kale waxay u fiican tahay dibirada hadda wali caloosha lagu jiraa dibirada calooshu markay ku dibirto iyo marka ay qayliyeyso oo kacsan tahay iyo marka aad daaca qurunto xamar dacwo shiira loo yaqaanaa iyo marka dacwo shiirto Soomaali waa badan yahay mintida waxay kaloo u fiican tahay neefta ayay u fiican tahay xanuunka la yiraahdo neefta way u fiican tahay neefta way ka dajinaysaa hadaad koob minti ah aad cabto amaba aad shidato oo waxaa jira bahal air leh oo inta lagu dhibciyo sanka airkeeda marka aad ka qaadatid ay feeruhu ku kala furmayaan iyo sanbabada markaas ayaad neefsan karaysaa markay neefta kugu dhagto taas waa dadka neefta qaba way u fiican tahay waxay kaloo u fiican tahay skinka way qurxisaa qofka hadduu markasta isticmaalo uu cabo skinkiisa qurux buu noqonayaa waxay kaloo u fiican tahay ilkaha oo waad aragteen waxaa jira daawooyinka cadayga Colgate-ka waa laga sameeyaa mintida waxay kaloo u fiican tahay timaha jajaba oo hadaad markasta cabtid timahaaga way ku dheeraanayaan mana go'ayaan wayna ku qurux badnaanayaan waxay kaloo u fiican tahay oo protect u tahay kansarka caloosha gala mintida waxay u fiican tahay oo kale brainta maskaxda ayay u fiican tahay waxay u fiican tahay oo kale maxaan ku iraahdaa waxay u fiican tahay oo kale infectionka caloosha gala waxay kaloo u fiican tahay wadnaha waxay kaloo u fiican tahay af urka afka dadka uu soo shiiro uu soo uro
dadka qaar waxaa la yiraahdaa marka afkaas uu uro Soomaalida qayba waxbay u taqaanaa qayb waxay u yaqaanaan wuusan si fiican u cadayan bay dhahaan qaybna waxay yiraahdaan caloosha weeye afka uraaya qofka hadduu cadaydo oo haddana weli afkiisa si uraayo waxay dhahaan waa caloosha xaggeeda qofka dadka calooshu taagan tahay bay dhahaan Soomaalida oo calooshooda quruntay oo aan qashin saar badan aanay samaynin oo caloosha adag oo calool birka la yiraahdo oo aan isqaras faalin ayaa afkooda soo uraa bay dhahaan okay halkaas waxay u fiican tahay af urka afka udgoon bay ka dhigaysaa waxay kaloo u fiican tahay sonkorta diabetiska sonkorta way dejinaysaa ama way kaa yareynaysaa kaa dhimaysaa waxay kaloo u fiican tahay maqaarka waa idin soo sheegay midabkaaga wuxuu noqonayaa nice special uu noqonayaa waxay kaloo fiicnaan lahayd iyada oo maxaa la dhahaa ishag iyada oo la qalajiyay oo la shiiday in cuntada lagu darsado ayaa fiicnaan lahayd waana la helaa waad isticmaali kartaan easy weeye cuntada marka lagu daro way fududahay wax oo maxaan ku yiraahdaa maxaa la dhahaa ishag strong ah ma noqonayso way u fududahay dadka inay cuntada ku darsadaan u isticmaalaan weliba iyadoo powder ah oo budo ah ayaa fiican marka waxaa ku jira vitamin A ayaa ku jira marka mintida dadka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan reexaan weliba koonfurta dadka koonfurta waa bixi jirtay waxaan leeyahay aad ha loo badiyo oo maxaan ku iraahdaa ha la beero waa u jeedaan inta anfac ku jira geedkaas geed fiican weeye caleenta waxaa weeye waxaa ku darsan kartaa liin dhanaan iyo mintidaas intaad karisid biyaha iyo caleenta mintida inta isku karisid ayaa liin dhanaan ku darsan kartaa ood cabi kartaa xagga caloosha markaa u isticmaalaysid xagga shaahana waa u isticmaali kartaa sida carabta ama dadkan kale Asiankan kale oo kale xataa sida Bakistanta Hunuuda Mongoliga Sri Lankaha waxaasoo dhan aad bay u isticmaalaan mintida waxay ku darsadaan shaahi aad u cabaan sababtoo ah shaah badan ayaa u baxa marka iyadoo kaligeedna way cabaan shaahana way ku dhex darsadaan waa arkay dad badan oo noocaas sameynaya oo dadkan Hunuuda iyo Bakistanta iyo Mongoliga iyo Sri Lanka adigu dadkaas timo jilicda ay Soomaalidu u taqaano way isticmaalaan oo sidaasay u isticmaalaan carabtana waxay u tahay daily morning everyday morning way cabaan shaah minti leh waxay u tahay waa rootiinkooda morningka shaah minti leh inay cabaan wayna jecel yihiin wayna aaminsan yihiin inay dawo tahay oo healthy tahay waana runtood waa healthy baaritaan lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday waxaan oo dhan oo hadda aan idiin soo tirinayay ay u fiican tahay oo dhan waxaa la geeyay shaybaar waa la baaray laboratoria la geeyay waa lagu baaray intaasoo dhan oo anfac ah ayay leedahay easy bayna usoo baxdaa mintida see loo beeraa aan idiin sheego anigii hadde reero beera waa jeclahay idin dhahayay mintida waxaa loo beeraa haddaad soo iibsatid mintida fiiri iyadoo haddaad soo iibsatid caleenteeda oo qorigeedii wadata qorigaasaad dhulka gelinaysaa waa geedka fudud ee si fudud kusoo baxa mintida iyada iyo bataati macaantaba laantoodaa la beeraa qorigooda laantoodaa la beeraa dhulka la gashaa way soo baxaysaa aaday u fududahay
waana geed muhiim ah hala beerto soomaaliyey waxa anfaca leh hala beerto ha laga faa'iideysto si ay Soomaalidu u noqoto dad maxaan ku irahdaa caafimaad qaba dad caafimaad qaba cunto caafimaad qaba cuna ayaa maskax caafimaad qabtana yeesha waan salaamayaa waxaan idin leeyahay my people share comment subscribe thumb up السلام عليكم ورحمة الله وبركاته